magaaladii Kalabeed saynu hore ugu soo ballanay reer Kalabeed ballankeenu wuxuu ahaa inuu maanta muddada uu amiin xilka hayay in reer Kalabeed loo tiriyo oo maanta xilligii Kalabeed wax loo qaban lahaa aynu joogno maalin hore waxaan idiin sheegay oo idinku yiri sanadkan maanta uu idinku golaha deegaanka Gabliye ee dowlateen tirsada tiina way rumowday maanta waxaynu joognaa saldhigii magaalada Togwa Jaale ee magaalada Kalabeed ay hirgeliyeen golaha deegaanka ee degmada Gabliye oo horkacay Maayir Maxamed Amiin waaw lama tirin kara maanta waxa sidoo kale wax Kalabeed waxyaabaha laga qabtay waxa kamid ah in isku rogadii xashiishka oo hore wiligeed Kalabeed loogu keenin in loo keenay balan qaadiyadii muddada dhawaanu galnay annagoo maayirka la socona waxaan filayaa madaxoogii intii badneed inay fushay mar haddii saldhigiina maanta gabagabay reer Kalabeed waxaan leeyahay sidaa la idinku halgamayo ee maamulka maanta jooga idinku agar baxayo waad ogeydeen oo 2-3 miisaaniyadood horaad ka hadheen taa maanta aad ku jirtaan laga midho dhaliyay ee muuqata waxa la idinka baahan yahay idinkuna saad maamulkiina ula shaqayn lahaydeen suna garab taagi lahaydeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa golaha deegaanka iyo maayirka iyo xogeeyahaba laba hore iskuulkan maanta aynu joognaa waxa weeyaan iskuulkii Hilac Weyne taariikhdu markay ahayd 2013 bishii 7 ayaa waxaan halkan ku nimid wafdi wasaaradda dakhliga ka socda oo kormeera iskuuladii iyo mashaariicdii uu shacabiyay waan dhammaystiray ayuu kamid ahaa iskuulkan oo qabyo ah waxaan maanta halkan u nimid inaanu dadweynaha tusno inuu maanta iskuulkii dhammaystiray maamulka maanta jooga iskuulkii inuu maanta dhammaaday ayaan halkan ka cadaynaynaa oo ardaydii inay soo gasho diyaar u yahay muddada uu soo qaatayna waxaan leenahay kulli wixii jiray waad ogtihiin oo waad ka dharagsantihiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin baan leenahay wixii dhacayba haddaan ka soo doognay oo iskuuladii maanta dhammaystiranay way dhantay